السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أردت الصوماليات مقالة مقولشة كإمادي وحان صدري كمبانيga IEHS aad u maadsanyihiin waxaan si nabad leh ku imaanay magaalada Istanbul aad baan ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga oo uu hormud u yahay gudoomiye aad baan u maadsantihiin waxaan aad u mahad celinayaa dhammaan intii gacan weyn ka geysatay in aan safarkeena si nabad leh halkan ugu imaano waxaan haatan rajaynaynaa in aan aadno jaamacadaheena kala duwan arday walba inuu jaamacadiisa aado dawladna waxbarashadiisa meeshaas uu ka bilaabo aad baan u faraxsanahay farxadeena lama soo koobi karo shirkadda IEHS na aad bay u mahadsan yihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga oo si diiran noo soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah maanta waxaa sharaf runtii noo ahayd jaaliyadda Soomaaliyeed wadanka Turkiga degan waxaan soo dhaweynay ardayda Soomaaliyeed oo ka timid magaalada Muqdisho ardaydaas oo hay'adda ay soo dirtay oo runtii meeshan u soo aaday inay wax bartaan oo jaamacadaha Yalooba iyo Boolo ay soo kala qaateen marka si wanaagsan ay runtii safarkooda ku soo dhamaaday imideen soo nabad galeen marka waxaan ku baraarujinaynaa ardayda maadaama waxbarasho ay u yimaadeen in ay xoog saaraan waxbarashada runtii ay u yimaadeen gacmo furanna ay ku soo dhawaadaan jaaliyadooda iyo shacabka degan wadanka Turkiga oo dhan ay ku soo dhaweynayaan insha Allah waxaan kale u dardaarmayaa maadaama waalidiintooda ay runtii duruufo adag maartay ay laga yaabo inay lacagta kaga soo bixiyeen waxbarashadoodii sanado badan ay soo jiitamaysay maanta ay tahay waqtigii ay jaamacadda ay dhigan lahaayeen oo intay wax bartaan oo dadaalaan ay anfici lahaayeen waalidkooda iyo wadankooda iyo diintooda intaba anfici lahaayeen marka waxaan leeyahay wadadaas dheer aad soo marteen iyo waalidiintii idin soo korisay oo runtii dhaqaalahooda iyo waqtigooda idinku bixiyeen inaad ka farxisaan oo aad uga farxisaan in aad waxbarashada heer fiican aad ka gaartaan inaad dadaashaan inaad ogaataan in idin saarantaan mas'uuliyad weyn oo ah mas'uuliyad idinka saaran wadankiina oo aad tihiin bari dadkii u soo bixi lahaa wadankiina inay wax u qabtaan wasiir noqdaan madaxweynayaal ay noqdaan aad tihiin marka waxaan idinka codsanaynaa inaad arintaas xooga aad saartaan oo maskaxdiinu ay noqoto maskax baahsan oo u baahsan inaad idinka anfacdaan wadankiina iyo dadkiina aad anfacdaan aysan noqonin niyad kooban oo ku kooban kaliya maaragtay inaad wadankan timaadeen ama aad waqtiga aad iska dayacdaan oo waxbarashada aad ka tagtaan waxaa kaloo ardayda aan runtii aad iyo aad ugu degaynaa saraxatan oo dhibaato lagu hayso tahriibka waxaan idinka codsanaynaa ardaydeena Soomaaliyeed sharafta leh oo runtii maanta soo socday ilaa 8 saacadood u soo socday ilaa Muqdisho ilaa Istanbul oo maanta Yurub aad joogtaan in arintaas aad ka fooljignaataan oo maxaa yeelay mustaqbalkiina iyo karaamadeena iyo intaba way dhibaysaa marka waxaan ka codsanaynaa in niyad fiican ay waalidkii faraxsanaa oo maaragtay idin soo dhaweeyay oo idin maaragtay idin soo heerka idin soo gaarsiiyay inaad ka farxisaan laakiin aysan waalidkii ay noqdaan kuwa idin ku farxa aysan noqonin kuwa idin ka naxa oo macnaha intaad waxbarashada ka tagtaan ama ka seegseegtaan ama aad maaragtay tahriib aadaan maanta ninka tahriib aadaya 100 euro ayaa bisha la siiyaa adigana waxaad xambaarsan tahay mustaqbal dhan wadan dhan mustaqbalkiisa xambaarsan tahay oo bari inaad ka noqoto agaasimo ka noqoto wasiir ka noqoto madaxweyne ka noqoto marka waa inaan maskaxdeena aan furnaa insha Allah taala jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan wadanka Turkiga markasta waxay diyaar u tahay in ay soo dhaweyso qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed hadduu arday yahay hadduu ganacsade yahay hadduu siyaasi yahay hadduu yahay maaragtay ururada haweenka haday tahay intaba marka ardaydan imaatinkoodan muddo dheer ay soo socotay oo laga soo shaqeeyay oo runtii hay'adda ay ka soo shaqeynaysay marka aad iyo aad baad ugu maadsantihiin sida wanaagsan aad isku xilqaanteen oo ardayda aad gacanta u siiseen oo u keenteen inay wadankan ay yimaadaan oo jaamacadahan aad u soo sahasheen inay dhigtaan marka insha Allah taala maadaama muddo laga soo shaqeynayay waxaan u baahannahay inaan najaxno oo mirihi meeshan aad u timideen aan dadka goranayo aan noqono haddaan nahay waalidiinta haddaan nahay dadka halkan jooga madaxda hadday tahay madaxda wadanka joogta Soomaaliya ay idinku farxaan shacabkiina idinku farxo marka insha Allah gacmo furan ku soo dhawaada waxa u timideen walaalihiin waxaa timideen Istanbul waxaa timideen waxaad aadi doontaan jaamacadihiina
إن شاء الله مستقبل في عم بأني كرجينيا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته